Audio Jungle. Audio Jungle. Assalaamu calaykum guys, kusoo dhawaada channelka Afroble. Fadlan ha hilmaamin subscribe, like, share, comment-ka inoogu wada fikirkaaga. Guys, maanta waxaan ka sheekeynaa xaaladda gabadha la yiraahdo Versifia. Xaaladda gabadhan oo ah in feedhaheedu uu ka koreeyo wadnaheeda. Haddaba aynu falanqeyno xaaladda gabadhan. Waxay ku bilowday sidatan. Xaaladdeeda waxaa loo yaqaanaa patology of controls. Asal ahaan waxay ka dhigan tahay in wadnahaygu uu ka baxsan yahay qafiska feedhaha si uusan qafiska feedhuhu u ilaalin mar dambe. Daawada gabadha hooyadeed waxay tiri looma sheegin wax sababay in Versifia wadnaheedu uu ka baxsan yahay laabteeda, mana garanayn wax sababay xaaladdan. Waxaan ogaaday in Versifia ay ku jirto xaaladdan wadnaheedu furan yahay markii ay ku jirtay uurkeeda 26 wiig. Xaaladda gabadhaydu ku dhacday waxay igu noqotay mid naxdin leh. Waxaan xasuustaa in maalmaha ka mid ah aan ka dhacay jaranjarada isbitaalka anoo qaylinaya, sababtoo ah waxaan u maleynayay inay dhimanayso. Dhakhaatiirtu waxay ii sheegeen inay dhiman doonto gabadhaydu. Versifia waxay tiri maadaama wadnahaygu ka baxsan yahay jirkeyga, ma aha inaan xanuun dareemayo, laakiin uma arko wadnahayga meel ka baxsan jirkeyga. Qasab ma aha inaan dareemo wax kasta, waayo waan la qabsaday. Waa laga yaabaa inay dareemaan dadka kale, laakiin aniga maaha. Halkani waa qolkeyga, waana meesha aan ku sawiro hibooyinkeyga oo aan kaga shaqeeyo homework-keyga. Iskuulku wuu fiican yahay, laakiin mararka qaarkood aad ayay u adag tahay, waayo dadku way ogyihiin xaaladdayda, waxayna isku dayaan inay ii adeegsadaan ama ay igu kaftamaan si khaldan. Xaaladdaydu waxay sababtay nolol maalmeedkayga, sababtoo ah ma samayn karo waxyaabaha fudud sida ma ordi karo, si degdeg ah uma socon karo, mana fuuli karo jaranjarada, waayo oksijiintaydu aad bay u hooseysaa. Run ahaantii waa inaan isticmaalo tan marka heerka oksijiintaydu uu aad u hooseeyo. Mararka qaarkood heerka oksijiintaydu waxay hoos u dhacdaa 50. Waxay tiri Versifia waxaan u maleynayaa in isfahan la'aan weyn tahay, in aan run ahaantii jilicsanahay ama aan mar walba xanuunsanahay, laakiin guud ahaan aad ayaan ugu faraxsanahay noloshayda. Aniga iyo hooyaday waxaan go'aansanay inaan ku soo bandhigno Instagram-ka xaaladdeeda oo aan faafino, waayo waxaa jira dhowr qof oo qaba mid la mid ah xaaladdeeda, si haddii ay dhakhaatiirtu u baahan yihiin caawinaad ama dadka kale ay u ogaadaan oo ay bartaan sidii loola dhaqmi lahaa dadka ama loo caawin lahaa. Elizabeth oo Versifia saaxiibadeed waxay tiri Versifia waa saaxiib aad u wanaagsan, wayna qurux badan tahay, cidna uma joojiso, hore ayayna u socotaa. Daawada waa gabadha hooyadeed oo hadalkeeda ugu dambeeyay ku soo gabagabaysay. Aad ayaan ugu faanaa gabadhayda, waxaana ku jecelahay sida ay tahay. Versifia waxay tiri waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan caddeeyo dhakhaatiirta qaladkoodii oo in la hadda cuni karo, cabbi karo, socon karo, noolaan karo. Waxaan jeclaan lahaa inaan riixo waxaan awoodo, sababtoo ah waxaan rabaa inaan dhiirrigeliyo dadka kale oo ogaadaan inaan kaliya ka weynahay wadnahayga oo aanan ku qurux badanahay sida aan anigu ahay. Asxaabi videogana maanta intaas ayuu ku egyahay. Videogana waqti badan ayay iga qaatay si aan soo turjumo oo soo gudbiyo qisada gabadhaasi oo wadnaheedu sidaas yahay. Videoga wuxuu noqon doonaa kan ku lamid insha Allah. Fadlan ha hilmaamin subscribe, like, share. Waan Afroble idin leh, ninka ku yidhi sinaan mayno anadiisa reyntiisa. Peace.